بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، تقبل الله طاعتكم وأتحنيني رمضان وإن سنة كان وبقى عدرني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حلقتني وحلقتي لباد وحنا العنوان قد إن شاء الله القلوب إذا فسدت بداية فساد الأرض. قلوب تمرك أي شرته وحالك كب الله بنيا دلك إنه فسهاده سياسة دي أيها فسهاديسا دقاليه بابربوريا دقناشه إيا نبت قليدي باويق ميسا aafooyinka dabiiciga ana way badanayaan sida abaaraha iyo dhulgariirada iyo daadadka iyo cudurrada. alqulubu idaa fasadat bidaayatu fasaadi alardi. weli ma isweydiisay akhi lmuslim, dadka maxaa fasahaadiya, mujtamaca maxaa fasahaadiya, dowladnimada maxaa wax u dhima? in badan oo inaga naga mid a waxaynu u haysanaa waxaas inuu meel kale ka yimid, laakiin xaqiiqadu waxa weeye waxaasoo dhan waxay ka bilaabanayaan qalbi fasahaaday. markuu qalbigu jirado, macsiyadii ayaan kula noqonaynin wax xun oo macsiyadii baa kula quruxsanaanaysa, daacadiina kulama macaanaanayso, xaqiina kuuma caddaanayo. insaankuna sawaabkii ama shaygii wanaagsanaa ayuu wuxuu arkayaa gaf. fasaadkii iyo xumaantiina bismi almaslaxa iyo bismi addiin iyo bismi alwataniya ayuu waxaa weeye ay ola quruxsanaanayaan. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. dhulka fasahaadina markii lagu yiraahdo waxay oranayaan annaga ba hagaajinayna, sideen dhulku kharibayna, annaga dhulkii baan hagaajinaynaaba oo maslaxadii diintan wadnaa, maslaxadii dalkan wadnaa, maslaxadii waxaanu wadnaa, reerkaanu wadnaa, maslaxaanu wadnaa buu ilayhiin. ilaahina wuxuu yidhi alaa innahum humul mufsiduuna walaakin laa yashcuruun. iyaga un baaba mufsidiina laakiin ma dareensana. inaysan dareemin maxaa keenaya? qalbigii baa jiran. bal u fiirsa aayadda ka horreysa, fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun. ayuha alaxibatu fi llah, maradu lqalbi waa maxay? jirada qalbigu waa maxay? xagay ka bilaabataa? maxaa lagu gartaa? calaamadaheedu maxay yihiin? maxaa daawo u ah intuusan dhulku fasahaadin? waxaynu oranaynaa insha allahu qodobka koobaad, maradu lqalbi waa akhtaru min marad albadan. qalbigu inuu ku bukoodo oo uu ku jirado waxay ka khatarsan tahay jirada jidhka ayay ka khatarsan tahay. maxaa yeelay jidhka markuu ku xanuunsado waad taahaysaa, waad qandhanaysaa, dhakhtar baad raadinaysaa, waad dadaalaysaa, laakiin qalbigu wuxuu ku bukoonaya adigoo qoslaya, adigoo diintii sheegaya, adigoo salaadii ku jira, adigoo safka hore ku tukanaya ayuu qalbigii ku jiranaya, mana ogid. musiibaduna waa midda. musiibadu waxaa weeye dadku inaysan ogeyn inay qalbiga ka xanuunsan yihiin. qaala allahu tacala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha. qur'aanka miyayna ku tadabburaynin mase quluubtoodii baaba xidhan oo owdanba? maxay tahay wanaagga aad rajaynayso iyo nuurka aad arkayso hadduu qalbigiiba ku xidhan yahay? kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. raan iyo mugdi iyo madow ayaa qalbigii la rabay nuurka inuu arko, daacada rabbi inuu dhadhansado, qur-aanka inuu ku tadabburo. raan baa fuulayba, hishaa baa dusha ka fuulay, waxba markaasi waa madoobaaday, waa mugdi, waxba ma arkaya. marka macruufkiina munkar buu la noqday, munkarkiina macruuf ayuu la noqonaya. qalbigii baa marka dhimanaya. markuu qalbigu dhintana dee jirka intiisi kale ayaa maaragtay dhimanaya. walaalayaal, arrinkaasi waano uu nin dad wacdinaya iska yidhi ma aha, waa qaanuun rabbaani ah. salaaxu lqalbi waa salaaxu linsaan. qalbiga oo hagaaga waa insaankii oo hagaagay. fasaadu lqalbina waa fasaadu linsaan. qalbigu hadduu fasahaadana waa insaankii oo fasahaaday. insaankii oo dhan ayaa fasahaadaya. qodobka labaad, alqalbu huwa miisaan ullahi fi lcabdi. meesha uu ilaahay addoonka ka miisaamayo waa qalbiga. dadku waa laga yaabaa in muuqaalkaada iyo sawirkaada uu cajab geliyo, dharka aad qabto inay la yaabaan, oo ay hadalkaada la yaabaan, makaanadaada iyo jagada aad hayso iyo garaadahaada inay la yaabaan. laakiin ilahi subxaanahu wa tacala waxaaso dhan ma eegayo, wuxuu eegayaa qalbigaada. qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam, ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum. ilahi subxaanahu wa tacaala muuqaaladiinna ma eegayo, jidhkiinna ma eegayo, xoolihiinnana ma eegayo, laakiin quluubtiinna iyo acmaashiinna ayuu alla subxaanahu wa tacaala u eegayaa. qadiyadu marka waxaa weeye ama arrinku dadku sidee ku arkaa ma ahe, waa ilaahay see ii arkaa. maxaa yeelay dadku maxay ku tarayaan? waxna kuuma tari karaan, waxna kuuma dhimi karaan. laakiin cidda dhib iyo dheefba gacanta ku haysa, adiga waxna ku tari karta ee ku abuurtay, hadday ku carootana aad halaagsamayso, waa rabbigii ku abuuray weeye. qalbigu marka waa meesha ilaahay subxaanahu wa tacala uu kaa miisaamayo. qodobka saddexaadna waxaa weeye calaamaatu fasaadi alqalbi. qalbigii marka inuu fasahaaday oo uu jiran yahay sideen ku garanaya? weliba dadkii la sheegayay iyagoo qoslaya haddana qalbiga ka jiran baan ku jiraa, mase waan qumanahay? calaamada lagu garta ayaa jirta. marka calaamadihii baynu wax ka tilmaamaynaa. calaamadahaasi waxaa kow ka ah, uguna muhiimsan, qilat lkhushuuc. inaadan salaada ku khushuucin, iyadoo ilahay uu leeyahay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. khushuucdu waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa aad qalbiga ka dareento, qalbigana salaada ay kaaga dhadhanto. laakiin qalbigaadiba hadduu maqan yahay, salaaddii baad ku jirtaa, waad foorfoorarsanaysaa, lakin waadba ka baxsan tahayba, meelo kalead ka shaxaysaa.
علامة لبادنا وحوي يحب المعصية والتعلق بها إن المعصية دي الله قبسته أي عادة كون نقطه شعلاته أدبت تكون نقطه تاوي ابن آدم هو خلدميا وأنا صون نقطة وحنا أخر بدل ابن آدم كأنت قفكي أي كشيء كسر نقطه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن مركي معصية دي بدقن كون نقطه وحي الدليل أتاه أرن كاسي إن قلبي قاعد أجريه قلبي قاعد إنه جريه فرق بين أقول حي الدم بقى إنها تكون عضو أو خلدنته يدينا كسر نقطه ينا الدم بقى تعيشه oo aad weheshanayso ood ku faraxsan tahay taasi waa musiiba waa khatar aad iyo aad weyn weeye zuyina lahum suu acmaalihim acmaashooda xun ayaa loo qurxiyey buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala musiibaduna waa middaa waxaana keenaya qalbigii oo jiraday oo howlgab noqday oo xumaantii iyo munkarkii macruuf u arka macruufkiina munkar u arka calaamadda saddexaad waxaa weeye qaswatul cayn qalbigu hadduu ingego ishuna ma ilmaynayso ta'athurna ma jiro عبسنا ما جرتو ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلبي جيبا إنجي أو رجح النقضي كدبنا هذا اللين مركا ما جرتو أيضا وحكو جرتي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لكن ماشي أضيق وجه شبه وحويه قلبي جي هدو رجح أو كلا النقضه هذا اللين مركا عبسنا مركا سما إيمان يسويه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ميسن دوان أولا جارين كو إلهي رميي قلوب تودون أخشوع أهجت ذكر إلهي سبحانه وتعالى وحد مدى إلهي إنه ليه goormaad dareemaysaan cadamada ilaahay goormay salaadu idin dhadhamaysaa goormaad dikriga ilaahay aad macaansanaysaan goormaad qaflada ka baxaysaan goorma ayuu qalbigiinu noqonayaa qalbi daahir ah oo waxa wanaagsan garta xumaantana ka fogaada goorma ayuu noqonayaa ayuha alahibatu fillah haddii taa la waayo xumaantii baa kula wanaagsanaanaysa wanaagiina waxun buu kula noqonaya deetana miisaankii o dhan baa isbedelaya dhulkii baa fasahaadaya marka fasaadkii baa xarka goosanaya ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي أرنكم مركان نقنيا فسادكي أي بد يبر بقى بنانك أصوب حي وواحد ما أنت إنها يستوي وواحد الدنيا ما أنت كتشروي وحصلنا وحي كبل لودين قلبي تشردي أيو كبل لودي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا ليال دولك إنه نوها جاجا مدونينا برواقع إنه نوع مدونينا نبت قليا مدونينا نظام وناكسن يمامل وناك الدولة وناكسن مدونينا ولا التنمى مدونينا وإنه نفتن إنه هجاجنه روح ده إنه هجاجنه روح دنا ما هجاجيسو قلبي أون هجاجن أرين كشناد دوني إن كان الله وحويه أعظم عقوبة وقسوة القلب مصيبة قفك كل عضة وقلبي أوك إنججه تدكو حموديان فقرك يعذر هذا يومارتي مصيبو ينككله الدنيا كتير دولة لا أنت لبعض هذا حبسية هذا وحاسو حموديان مصيبة لكن المصيبة الكبرى وأن قلبي أوك إنججه سادرات أبو حسن البصري وحولها عليه رحمة أرحم الراحمين ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب قفك عقاب لو عقابه وكدرا مجرته قلب إنجيك بعض سلفنا وحيلها ين إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي إلهي بان عاصنيا ودقف با يقدع عيا ديتنا راد كيسي وحان كاركيا قاديد كيغا زوجة ديدا قلبك مركا أوكو فسهاده أو أوكو حماده نرشي أردن أي حمانيس محانا لقدونا يا مك وإنو صومنها يصوماها إلهي درتي بين أسوة منها يسوماها معنى والبطمان دقيقة إسويدي ما حان شعلها هرت وحا أن شعلها waa maxay sababta aan waxa aan jecelahay aan u jecelahay waa maxay maxaan dhibsadaa waxaan aan dhibsanaya ee maartay aan ka caroonayana maxaan ugu caroodaa maxaan u dhibsanayaa maxaan ka cabsadaa maxaan soo cabsadaa maxaan ku madax adkahay maxaa la iga doonayaa maxaa maartay ila gudboon salaadayda ma ku khushuuca ilaahay dartii ma u ooyaa mase qalbigayga xasad iyo kibir iyo riyaa iyo isla weyni iyo jaahiliya ku jirta deetana ilaahay toobad keenno rabbi subxaanahu wa tacaala aan runta u sheegno qalbigeenna aan hagaajinno ceebaha inagu aynu leenahay yaysan inaga maaraha inaga mashquuliso ceebaha dadka kale ee inaga ceebaha dadka kale ku mashquulsan yeenan ceebteena ka mashquulin dhulka inuu noo hagaag hadaynu doonaynana qulubteena inuu hagaajinno ilaahay qalbigeenna hadduu hagaajiyo adduun iyo aakhiraba waa inuu hagaagaya salaadii baa nuur noqonaysa قرابتي باستعلانيسا اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اجعل قلوبنا سليمة لك خاشعة لك يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا مرضا اللهم لا تجعل في قلوبنا مرضا اللهم لا تجعل في قلوبنا قسوة اللهم ارزقنا قلبا يخافك كأننا نراك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.